بسم الله الرحمن الرحيم ومركلة برنامجكيني برا شرعية فردقاً مانتا وحينو كغاهد لدونا هدو إيبا إدمو محكمة دقمدا حرون نوعيه أي ليدهي halkeebay ku taala maxkamadda degmadu awoodeeda dhuleed ay ka arrimin karto inteebay ku eg tahay intee qaybood ayay maxkamadda degmadu u qaybsantaa dacwooyinka ay awoodda u leedahay inay gasho maxay yihiin ayaynu insha Allah ku qaadaa dhigi doonaa ama aynu ku qodobayn doonaa fadhigeena maanta daawadayaal saynu hore u soo sheegnay ama aynu u soo tilmaamnay fadhigii hore maxkamadaha waxaynu u qaybinay ama markaynu ka warramaynay qaab dhismeedkooda 4 maxkamadda degmada maxkamadda gobolka maxkamadda rafcaanka iyo sidoo kale maxkamadda sare qaabka ayaa loo kala saaraa maxkamadaha waxaynu kala u kala saari karnaa hadaynu si kala u fiirino ama si kala aynu u eegno maxkamadaha caadiga ah iyo maxkamadaha aan caadiga ahayn maxkamadaha caadiga ah waxay u kala baxaan maxkamadaha ama maxkamadda darajada koowaad ama darajada hore oo ah marka maxkamadda gobolka iyo maxkamadda degmada maxkamadda darajada labaad oo ah maxkamadda rafcaanka iyo maxkamadda darajada saddexaad oo ah marka maxkamadda sare maxkamadaha aan caadiga ahayna waxa la yiraahdaa maxkamadda badbaadada dalka iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida haddaba daawade waxaynu ka hadli doonaa maxkamadda degmada maxkamadda degmadu waxay xarun ku leedahay gobol walba degmadiisa ayay xarun ku leedahay garsoorideeduna waxa ay ku eg yihiin ama ay ku eg tahay degmadaasi dhammaan dhulka ay ku fadhido ama ay ku fido sida ku xusan qodobka labaad faqradiisa koowaad xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliyeed markaynu ogaano aynu garanay maxkamadda degmada xarunteedu inay ku taalo ama laga helayo gobol walba degmadiisa isla markaasna garsoorideedu ay ku eg tahay dhulka ay ku fadhido ama ay ku fidsan tahay maxkamadaasi daawadayaal maxkamadda degmadu waxay u qaybsantaa ama ay leedahay laba qaybood oo kala ah madani iyo ciqaab haddaba si aynu u ogaano dacwadaha ay awoodda u leedahay maxkamadda degmadu in ay qaado ama ay gasho waxaynu leenahay maxkamadaha marka loo qaybinayo dacwadaha ay maxkamad walba awood u leedahay inay gasho 3 dhinac ama 3 waji ayaa laga fiiriyaa ama loo qiimeeyaa koow xuduudda dhuleed waxa la isku haysto ama lagu muransan yahay halka uu ku yaalo ayaa loo siiyaa maxkamadaha ama ay awood u kala leeyihiin inay u galaan tusaale ahaan waxa la isku haysto haddii uu degmo ku yaalo degmadaasna ay tahay tusaale ahaan degmada Cabdicasiis waxa weeyaan isla degmada maxkamadda ku taala ayaa awood u leh in ay qaado murankaas wajiga labaadi waa mowduuca dacwada tan maxay ku salaysan tahay mowduuc ahaan midda saddexaadna waa qiimaha dacwada ilaa qiimo intee leeg ayay dacwada tani ku fadhidaa tusaale ahaan wixii ka badan shilin Soomaali ahaan sidii marka hore loo jaangooyay 3000 wixii ka badan
waxaa ikhtisaas iyo awood u leh gelideeda iyo qaadideeda maxkamadda gobolka. wixii intaa leeg ama ka hooseeyana waxaa awood u leh maxkamadda degmada ayaa awood u leh. daawade maxkamadda degmadu qaybteeda madaniga ah waxay gashaa ama ay qaadaa dhammaan dacwadaha madaniga ah ee nuxur sharciyeed leh isla markaasna qiimo lacageed aan ka badnayn shilin Soomaali 3000. halkaas hadaynu fiirino xeerkan markii la dejinayay qiimaha kan lacageed ee shilin Soomaaliga ahi waxa uu lahaa macno weyn iyo qiimo weyn, laakiin maanta aynu joogno qiimo ma lahan. sida aawadeed maxkamadda sare waxa ay ku jaangoysay qiimaha 3000 ah qiimo maanta la mid ah ama la eg oo ah $3000. sida daraadeed dacwad walba oo madani ah ama muran walba oo waxa weeyaan degmo ka dhaca ama meel kale ka dhaca qiimaha la isku haystana 3000 iyo ka yar uu yahay waxa awood u leh inay gasho ay qaado maxkamadda degmada. hadaynu fiirino qaybta ciqaabta ee maxkamadda degmada waxay qaadi kartaa dhammaan dacwooyinka ciqaabta la xiriira ciqaabtoodu aysan ka badnayn 3 sano oo xariga ama ganaax lacageed shilin Soomaali 3000 oo u dhiganta maanta $3000. sida ku xusan qodobka labaad faqradihiisa 2, 3 iyo 4 xeerka nidaamka garsoorka Soomaaliyeed. sidoo kale waxay qaadi kartaa maxkamadda degmadu dacwad ciqaab ah oo ay markaa la socoto mid madani ah oo qiimaheedu saynu hore u sheegnayba uusan ka badnayn $3000 Mareykanka ah. intan waxaynu maanta ku soo afmeernay ama aynu kaga hadalnay maxkamadda degmada iyo dacwooyinka ay awoodda u leedahay in ay gasho iyo isla markaa halka ay ku taalo. waxaa kaloo xusid mudan maxkamadda degmada dhinaca madani ha ahaato ama ciqaab ha ahaato waxaa gala hal garsoor ayaa gala. inta ayaan ku soo afmeerayaa mowduuceeni ahaa bara sharciga. intan aynu dib uga kulmi doono hadduu eebba idmo waxaanu idiin dhaafaynaa sidaas iyo nabaadiino. waxaanu idin leenahay muuqaalkan iyo muuqaalada nooca kan oo kale ah oo waxa weeyaan bulshada faa'iidada u leh saanu filayno ama aanu dareemayno la wadaag saaxiibada iyo walaalada. waana mahadsantihiin. assalaamu calaykum.